الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. وعن كجرنا ولي خطبوينك عوانك وذوها محال وذجوي كرا وخطبة طبنات. خطبة waxay noo sheegaysaa idaarada iyo maamulka fiican oo dadka muslimiinta lagu talagalay inay ku dhaqmaan markay maamulayaan manaaficda ka dhaxaysa, gaar ahaan manaaficda magaalooyinka yaala ama ay dawladuhu maamulayaan. manaaficda caamka ah in la maamulo la maareeyo waa meel muhiim ah, aadna loogu baahan yahay. maxaa yeelay qofku maslaxadiisa gaarka ah asaga ilaashanaya, waxa badanaa dayacan ama lagu cayaaro maslaxada caamka ama manfaacada caamka weey. anagu Soomaali ahaan waxaan dhaqan u leenahay in qofku uu yaqaano waxa asaga uu leeyahay, uu waardiyeysto qabiilkuna uu waardiyeeyo, inuu yaqaano waxa qabiilka kale leeyahay uuna ka baqo iskana ilaaliyo. laakiin wax ummadda ka dhaxeeya la xurmeeyo oo dhammaanteen aan wada leenahay oo dhammaantood ilaashanayno daakiradeena ama xasuusteena kuma ay jiraan. taas adkaynaysa marka in manfaacada caamka si sax loo maamulo. waxa adkaynaya dhaqankeena ayaan ku salaysnaynba in wax caam ah si sax loo maamulo. waxa ay leedahay ilaasho waa naqaanaa, waxa qof kale iska leeyahay ka baq waa naqaanaa, laakiin wax ummadu leedahay ilaali waxa anagu aan naqaan qabiilkeena, waxa naqaan dhaqankeena iyo weliba miyigeena ma ah. taasoo keenaysa in aad la iskaga ilaaliyo haddii qofka loo dhiibo waxa caamka oo gaar ahaan magaalooyinka yaala, uuna iska ilaaliyo inuu ku dhaqmo sidii inuu miyiga joogo oo wixii caamka ahaa uu khaas ka dhigo, oo xoolihii iyo hantidii ummadda iyo jagooyinka ummaddu iska lahayd haddii qof lagu naasnuujinayo ama qof xigta ah loo dhiibayo ama qof xidid ah loo dhiibayo ama qof kale xisbi ah loo dhiibayo, dareenkaasi dareenka miyiga yaala weey. dareenka islaamka ma aha, dareenka magaaladana ma aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa in amaanooyinka loo dhiibto oo la gaarsiiyo dadka iska leh ama dadka mudan. ilaahay wuxuu leeyahay inna allaha ya'murukum, wuxuu ilaahay amrayaa an tu'addu al-amaanaat, inaad amaanaadka gaarsiisaan ilaa ahlihaa, dadka ahalkeeda ah. amaanad waxa lagu fasiray fi hadhihi al-aaya al-amwaal, hantida guud ahaaneed, hantida caamka oo ummadu leedahay waa amaano. dadka iska mudan, dadka mudan iyo dadka astaahila ayaa la gaarsiinayaa. walwilaayaat iyo jagooyinka waa amaano, ayagana dadka mudan ayaa la gaarsiinayaa. marka ummadda muslimka ah waxa magaalada yaala badanaa wax hanti caam ah oo ummadda ka dhaxaysa iyo jagooyin caam ah oo ummadda ka dhaxeeya in si fiican loo maamulo oo maaragtay cadaalad laga sameeyo oo dadka mudan ay helaan bay ayaduna amraysaa. jagooyinka ayaga marka iyo hantidaas haddii si fiican loo maamulo dadku way xasilayaan, dadku way maaragtay maxaa kalsooniba abuurmaysa. waxaa loo baahan yahay haddii aan Soomaali nahay inaan fahamno meesha aan ka dunnay inaan iska daaweyno. taariikh ahaan haddii wixii dadku ku dumeen lagu daaweynayo, wixii lagu xanuunsaday haddii daawo laga dhigo ma la daawoobahay. ummaddan waxa dumiyey cadow soo duulay ma aha, ummaddan waxa dumiyey inaysan ciidan haysan ma aha, ummaddan waxa dumiyey faqri iyo abaaro ku dhacay ma aha, ummaddan waxa dumiyey waa hal meel weeye. marka meesha ayada ah in la daawayaa la rabaa oo culayska la iskugu geeyo. meesha waxa weeyaan waa kalsooni la'aan ka timid sida loo maamulay awooddii caamka ahayd, sida loo maamulay maalkii caamka ahaa. markii kalsoonida la waayay marka ayaa dalkii burburay. marka qofka maanta imaanaya meesha uu tooganayo oo awoodda iskugu geynaya oo ummadda ka daaweynaya waa halkaas baa inay ahaato. ummadda meesha ay ka duntay inta garatid ka daawee
وحير كشب وحير سوكردي كرسوني ير أبور ضدك جعيك أبور ضدك محاكورة كانت ذنبين أبور ضدك إن استعلان أبور ماشي اللي قدمي مدة كداوي وحكوا الشيء هيو أو في عن إن صار خيرات إن بترول صاره إن واحد بدن له له إن الدنيا ما تدين تنقع فيه إن لك قاضي محاكورة أيوب عن غاتيس إن لك قاضي أو هم كانوا الله فصحه وحاصل وحان كدني معه وحان كدني هو الآن ما هي هذه إن لك قاضي ونقابتين تا هوك محن قلت رئيسا هذه إن الله فصحه أنا بأسكول لي محن قلت رئيسا مركب وإن فهمنا هذه سياسيين اللي هي وهجانك أمد اللي هي أمد ماشي إلى هي فهم أمد ماشي كدنتي كداوي أمد واحد كدنتي هكداويني أو إن هنتدي عام كهاد سيح الله معمله أو إن تجوين كده على مدنين للسيو وإذا حكمتم بين الناس ضدك هذاك الحكمتان ضدك على شيء مسلم لما شيء قال لما شيء سومالي لما شيء ما قاعد ضد يا لقاه الله هي مر هذه ضد لك الحكومة هي نوع النقدان با وحلو بهي عدالة بهي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذيك لك الحكومة هي ضد وضد ويا قبيل ماها سومالي ماها مسلم ماها قال ماها عدالة بهي مركز ضدك شغويك مضان لو ديبه oo hantida iyo manfaacada caamka ah dad fiican gacantooda la geliyo waa meesha lagu daawoobayo weeyaan waana mabda caam ah oo soo jireen ah oo qof kasta oo muslimiinta kamida ama dadkii hore soo maray taariikhda islaamka ama ambiyadii hore soo maray qof kasta oo ka hadla maamul waa uu sheegay waxa maamulka lagu mutayso tilmaamaya nabiyullaahi yuusuf ayaa wuxuu leeyahay ij'alni ala khazaa'il al-ard dhulka khasnadihiisa iyo maaliyadiisa dhiib ayuu ku yiri boqorkii maxay tahay sababtu xagee ka soo jeedaa yaa ku dhalay siifiga maxaa ku qoran inni xafiidun caliim yiri waxaan ahay mid amaanada baan ahay mid waxaan ahay cilmi u leh waxa la dhiibayo asbaabtan buu soo qadimay nabi yuusuf ma sheegin inuu nabi dhalay ma sheegin awoogiis ما شيء إبراهيم ما شيء إسحاق نصب عظيم أو درجة له هو هيستار لكن أسوي فيه شيء هي إني حفيظ عليم بالوحانا هي أمانة لبارنا هي علمنا له إيدي بولي همتدا يمارين تدفق مركز فيه ما تلا استعمال أيه ده الصوماليين هي قبيلة يقف شعليسي يكناء حجة يكناء صعبية يكناء تاجرة سيفي جاسي كم قرن ماشى قبل ولا سنة أو نبي الله موسى شكيس كشكين يسي أي واحد يمكن له هذا يسي به يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أبا ونكان نوشق عليه هو هالنوشق طفل شغال استوحى في عم بيتي لي قفك أود له كرتيدا له أمانة له وقبر عن كبحين جامعة ما تلقوا برته ما ملك يهجمت عن كبحين يا بري وحان شيء فدري قوي قفك بني آدم كأه ودين تليه أنت مو قرنايا مركب واحد قبر إجارتي أيضا كبحين جامعة أيها ضدك اللي جامعة كبحين وشهادويك وتي إجار الأني وحكوا صدحات وموضوع عن كهذا هي ودرسي نوقع إيمانية قف عن إنسي أهين جني بوك إيمانية جني أيا عشر نبرة يا مانت ولي بالجني عادي أمانة عفريت بقى نبرة هي وحو نبرة يا وحل رمو تيستجوين يكون نبرة هي وحو نبرة يا وحل شغال رمو تيستون نبرة هي نبي الله سليمان مركي ويري يا إيكينا هي عرشك بلقيس قال عفريت من الجن عفريت جن يا كم إذا يا ويري أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا يا أخوك يا عرشك بلقيس أنت آدم كاستاجن ليش أفدسيت وإني عليه لقوي أمين وحانا هيمين أود أوله
oo keeni kara ammaanada leh waa labadii sifo weeyaan oo gabadhu ay sheegaysay ka horna uu nabigiisu u sheegay weeyaan ifriidka yaa bare waxaan marka qofkii wanaag rabaa xataa ifriidka ku sheegay ku barahay marka ifriidka siifiga hada uu soo qadimaya inuu jinni yahay inuu ifriid yahay ma waxa weeye wa inni alayhi laqawiyyun amiin marka wax uu ifriid garanayo asagoo aan si ahayn oo jinni ah wuxuu gartay in laga maarmaan yihiin hadii wax la maamulayo in laga maarmaan yihiin hadii shaqo la qabanayo wuxuu gartay baa aanu garan la'aan anagu islaam sheeganayna oo bani aadam ah marka in jagooyinka iyo maamulka saas loo hagaajiyo waa laga maarmaan weeye ummadda ayay ku abuuraysaa kalsooni ummadda ayaa xasilaysa ummadda ayaa isjeclaanaysa ummadda ayaa isku ducaynaysa waa in la ummadda dhexdeeda haddii cadaaladda la waayo oo ammaanada la waayo dadku way isnacahayaan way dagaalamahayaan way kala tegahayaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa noo suuraynaya haddii dadku maamulka hayaa fiican yihiin iyo shacabkoodu sida isku yihiin xadiidka muslim warinayo iyo qeyrkiis nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay khiyaaru a'immatikum madaxdiina kuwa ugu fiican alladhiina tuhibbunahum wa kuwa jeceshihiin wa yuhibbunakum idin jecel wa tusalluna alayhim adu ducaynaysaan wa yusalluna alaykum ayu idin ducaynaya kuwa jeceshiin oo idin jecel u ducaynaysaan oo idin ducaynaya kuwaas ayaa madaxdiina fiican wa shiraaru a'immatikum madaxdiina kuwa ugu sharta badan alladhiina wa yakuwa tubghidunhum adla'ibtihim wa yubghidunakum idin na'ab wa tal'anunhum al'anadaysan wa yal'anukum al'anadahay marka mujtamac isla'anadahaya oo isnacab baa soo baxaya hadii cadaaladda laga tago maxaa keenaya marka in cadaaladda laga tago maxaa keenaya in amaanada la lumiyo waxa keenaya waa hal shay waa qofka oo dan gaar ah wata weeya dantii gaarka ah oo miyiga taanay oo qabiilku yaqaanay ayaa lala imaanaya maamulkii iyo magaalada lala imaanaya asagoo dan gaar ilaashanaya ayuu amaanada luminaya asagoo dan gaar ilaashanaya ayuu qof aan mudnayn jaga siinaya sidoo u wada marka asagoo dan gaar ilaashanaya ayuu cadow salka la galaya waxa maanta nays marka anaga maanta aan la xasilaana oo siyaasadeeni ay la degalaan oo marba meel lagu shirahayo oo saa loo wareejinayo wax kala maaha waxa weeyaan dadka amaanadoodii iyo cadaaladoodii ayaa luntay markaas ayaa waxa la raadinaya dan gaar ah bal raadinaya laakiin la dul saaray wax caamala dul saarahay oo lagu daharahay marka danta caamka ah hadii laga tago oo manfaacada caamka si xun loo maamulo oo dad gaar ah wata ay maamulahayaan si la yeelaya marka waxa kaliya oo lagu wardiyeyn kara waxa weeye in dadkaas ay damiir yeeshaan oo ay diin yeeshaan oo ilaahay ka baqaan subhanahu wa ta'ala waxa kale lagu wardiyeynayaa in ummadu ay waxeeda difaacato ummadu inay xaqeeda ilaashato ummadu inay manfaacada caamka lagu cayaarayo ay difaacdaan ummadu inay maslaxada caamka difaacdaan ayaa lagu difaacayaa marka wax kasta la soo maro oo meel kasta la soo maro qof dan gaar ah wata oo shisheeyad maxaan ku raahaa ku tiirsan hadii ma aragtay meesha ay soo istaagto qofkaasi qof rajada ma ah marka ummadda muslimka ay tahay ummad nool oo maxaan ku raahaa xaqeeda difaacanaysa oo danta caamka difaacanaysa oo dadka dareystayaasha aan isku dhiibaynin ayaa ummaddu ku guuleysanaysa insha Allah ta'ala marka hadii mid la waayo halaag ba imaanaya nabi sallallahu alayhi wasallam ku leeyahay idha wusida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir sa'a hadii arrinka loo dhiibo dad ahalkiisa ahayn saacadii qiyaamo sug marka waxa loo baahan yahay in dadka muslimiinta ahi ay ilaahay ka baqaan subhanahu wa ta'ala oo maslaxada caamka la ilaaliyo marfaacada caamka la ilaaliyo Soomaaliyeed waxa miyiga yaala
qof kasta asagatiisa ilaashanaya nin kasta hashiisu ilaashanaya qabiil kasta deegaanku ilaashanaya waxa dayacan dawladdu la isku yimid weey dawladdu la isku yimid oo magaalooyinka nooga dhisan ayaa laga dayacan manfacadeedii caamka ahayd maslaxadeedii caamka ahayd ayaa dayacan markaas waxa lagu weeri karaa waxa weeyaan lagu waardiyeyn karaa waa alla ka baq in damiir la yeesho in diin la yeesho in qofka Soomaaliga ahi qofka daalimka uusan taageerin weey dadka mas'uuliyiinta ah in ku kalsoomaan ma aha dhowr qof oo amaanaysa siyaasi ku nacay waxba fiirin siyaasi ku jecel ha fiirin shacabka fiirin miisaanku waa shacabka weey miisaanku waa dareenka ummadda weey siyaasi ku nacay oo kursiga ku haysta iyo mid ku jecel iyo mid kala fiirin miisaanku waxa weeyaan ummadda muslimka ah sidee ku aragto dareenkooda weey Umar radiyallahu anhu Umar bin Khattab maalintii la dilay oo asagoo ku jira salaada subaxa ee lagu tooreeyay ayuu yaabay wuxuu yiri badadka soo wareystay maxaa jira wuxuu ka baqay in muslimiintu aysan raali ka ahayn ka baqay in waxa muslimiintu soo maleegeen buu ka baqay asagoo saxaabiga la yaqaan ah oo fadliga leh oo darajadiisa la hubo ayuu ishubin uu leeyahay waatan la dilay say wax u jiraan badadka soo wareys dadkii baa la aaday ayagoo kulli wada ooyaya oo wada murugaysan baa la soo arkay qofka dilay baa loo soo sheegay inuusan muslim ahayn markaasuu farax marka anaga wax qasanayna oo wax kasta haleynayna inaan isku kalsoonaano oo shacabkeena iyo ummadeena dareenkeeda aan la socon weynahay wada sax ma Ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga dhigo kuwa iskaalmeeya oo wanaaga isku sheega oo isku naseexaya adduunka aakhirada Allah noo hagaajiyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid